الله تعالى وبركاته ميل كسو joogtaan kusoo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan waxaan idin hayaa reaction ama falcelinaba aan caadi ahayn waxaanu haynaa in saa ugu dhiganahay heestii heblo waa la guursadaya waa Mustafa Dollar studio waqal studio aan la qabsan karin weeye aan la halkan hore u socda bal inoo bilaabaya 7 bilood ka hor haye riyadaada ku rumeeyo oo ah inaan warqadaada ku siiyo gabadhii laga guursaday fanaanka ayuu ninkii guursaday ku yiri 7 bilood ka hor inaan riyadaada ku rumeeyo oo warqadaada ku siiyo weeye hadaad igu maaragtay faraxsanayn haddana 10 bilood kadib الفنان مصطفى دولار أو ميل بادية من مي قف كسابة سوية قانو وما قال ذاك بحسن لو إسكالة شوقه أو عاوز كسينة ميل دوغة هو عقول يا كلا دقي بنوتنا هي كبر يعني إنان أما كبر مية ودتكي مية قف صار مية بوكي ود أجل أصل كيني ودم باو مية موت وحلقة فانا ما مية أو أنا ملاينا يعني حاسكيسن نقطن طنط حاسكيسن يعني قولي ما كل جو كورس ذيك تبو كورس نيو وكورس ذي نقطن طنط أي حابسو ستة ودينك عندك ستة وأنا أستورنت هاي ما شاء الله سوقنا بل يوحودي لعضة يد يا خامتو دي مقرنس اسم الله قفكاغي يا في اسم الله قفكاغي saaxiibkeen rajayl waa gabadhii laga guursaday haddana markii dambe ninkii guursaday ku qanci weyday uu ninkii soo furay u keenaya soo midkiisii jooga waxa ku yiri yaa aniga qasnaynba qofka kale ku dooma adigoo mid kale qaba qolqolkaagii manuu qofka kale gudooma adigoo mid kale qaba muxuu yiri ismaan lahayn qofkaagii qofka kale gudooma adoo qolqolkaaga jooga qolqolkaaga iman yani gabadhii laga guursaday يعني كم وين تشنينين أنا جو يعني جورسدي أو يدي والي جورسدي جورس تجنو حاس كراله أنت على صفر تون يقول لي من طنط إنه بعد ما حسن ومرجو لحبلات كهر مركي كبدي وأروسني أروس كوجري قل كاجي منو سو دنيا تبصنا قفكي وتشعلا markii hore laga guursaday ayuu gabar kale guursaday markii gabadhii idan la guursaday isaguna guursaday miiba u baxay aroos miiba loo dhigayaa oo inaba caadi ahayn heesan waa hees wax wadataa ya inaba caadi ma waa heesaa yani taabanay dad badan bay taabanaysaa heestan waana qiso dhacday wey wadnaha qaraacaya iyo oohinta waa hees muruga ah isma lahayn qudhaadii kaa qaaday calafka marla ismaan lahayn qudhaadii kaa qaaday calafka haye mar labaad haye waad ku qaybi mar labaad ku qaybi oo mar labaad
kusoo noqon inta maaragtay af soomaaliga ku adeegaya heesaya wallahi iyo garaas af soomaaliga aad jabsanaysa mar labaad kusoo noqon haye aduu qoys yagleelo qawa الله كدا adoo qoys yagleelo adigoo iska dhisanoo nin meel degan ah inay kusoo noqonayso niyadda maangelin bul adaayo nolosho farxadaan ku qaydinay qawada iyo nolosho farxad aan ku qaybnay yani adigoo iska nool oo guursaday oo xaas kale qabo oo meel degan oo gabdhii laga guursaday inay kusoo noqonayso niyadda ma gelinaysid dee hees u ah ismaan lahayn qudhaadii kaa qaaday calafka ismaan lahayn qudhaadii kaa qaaday calafka haye mar labaad ku qaybi mar labaad ku qaayibi aduu qoys yagleelo qawaada adoo qoys yagleelo qawadaya nolosho nolosho haye farxadaan qaydinay farxad aan ku qaydnayn heestani waa kaaf iyo kala dheeri weeye qofkaagiyo lasoo furay adigoo qof jecel oo yani lagaa guursaday oo adiguna markaad guursatay adigoo aan faraxsanayn haddana qofkii lagaa guursaday lasoo furay oo adigoo guursaday yani ku yimi waa inaba caadima waa iya allow yaa qalbiga iyo ku qalabogaygo allow yaa qalbiga iyo ku qalabogaygo haye dee qofka yani si kale kuguma aaminaya haddii kale ma ogta yani qofkan inaad guursato inaad yani iskaga tagtay buu malayn inaad ka kaaftoontay laakiin marka bogka iyo qalbiga iyo de wixii ku jira hadii loo qali lahayo la tusi lahaa de way yaa qani lahayd mogta aad aragtid qiimaha intaad qayb ku leedahay aad aragtid qiimaha intaad qayb ku leedahay ood qanactid goorta anna aan qaboobe ood qanacdid koorta annahan qaboobe dee si aad isku oran garanaysa imika gabar baan qabaaye aad yani niyadda u gelin wuxuu kaaga tegay yani markii hore waxba kuumu haynin yaa qalbiga kuu fura si aad u qanacdid annahan qaboobe ood qanactid goorta anna aan qaboobe murugadii isaga haysay markii hore waxaa uga daranba murugadan kale allow yaa qalbiga iyo ku qalabogaygo aad aragtid qiimaha intaad qayb ku leedahay ood qanactid goorta anna aan qaboobe ood qanactid goorta anna aan qaboobe soo iska sii socdo buriga iska sito miyiga iska damaashaadaya laakiin murugu waxaa yani ku timi inabaan caadi hayn de bal qofkaagan si aad u qancinaysa hataba ya heblaayay markii hore waan ku jeclaa laakiin iminka markaad iga tagtay waan guursaday qalbigey wuxuu mogta qofta aan la noolay qardhaas weeye ehelku qofta aan la noolahay qardhaas weeye ehelku haye dhayma iigu qorayo qardhaas weeye ehelku dhayma iigu qorayo yani wuxuu leeyahay waxba maaragtay hays xumaynin gabadhan markaad iga tagtay dee adiga reerkiinu uu ninku siiyey ayuu ehelku iyo dee famligaygu qardhaasaan iigu qoray si aan ku caafimaado hadda soo socon abaan umaleynaya
Qoontay dawaysay qoontay daweysee haye qofta aan la noolay qardhaas weeye ehelku dhayma iigu qorayo qoontay dawaysay waa markii la siinayey gabadha intaan la siin ka hor soo iska murugeysan oo waxaan ku yiri ya markasta ateenkiisu baxsan yaho heblaayadii laga guursaday ka fakeraya ay reerkii u dashteen oo dhaheen ninkan iyo inaan ku darno ya inaan aan fogey oo ardayga ah marka wuxuu leeyahay qoftan reerkuu siiyey cid wax kale ha u qaadanay farxaddeeda maaragtay qoontay daweysa guryihii miyigii yani dhulka baadiyaha miyigu aad inaba si aan caadi ahayn buu qurux badan yahay marka guriga miyigii geelii iyo dhinacaasa arigii lo'dii waxaan ku yiri dhaqankii rasmiga ahaa waliba reer miyiga goboho markaad u tagtid marti soorayaan moogta dadka magaalada waxaa ma yaqaanaan neef baa lagu bareenaya qaban karaa shay oo ka qarsanaya qadarka awood leh maxaan qaban karayaa amaan kaa qarsanayaa qadarka awood leh waa runtii waxba lagama qaban karo dee ilaahay baa awood dalaa moogta يعني لو واحد كبد له شيء كذا هو وقت وحرق قوان كلام جرت مر بي أدوية كوستاجين هذا رونس يا صوت إلا إنه لو شقو روح ماله قدام قويس لنقوني إلا إنه لو شقو روح ماله تنقوس لنقونين هاي maxaan qaban karaa shay oo maxaan qaban karaa shay kaa qarsanayaa oon kaa qarsanayaa gabadhii uu la hadlayaa yacni dee wax aan ka bedeli karaa xaaladda ma jirto adigu waa layga kaa guursado ma oran karo dee gabadhaa laysoo garaans waaba lagu bixiyeyba haddii gabadhii la bixiyo waa la bixiyey waa gabar marwo la qabo wey xaal iyo waxaan ku yiri waa calool doox wey anuu miyiga markaas ka baxay siri ya adduunka waa ka samir reerkii baa mid qoorta ii geliyo yiri oday meesha ka kaco waa talo kuwa ciirta maqli jirta qadarka awood leh ilaa noloshu qurux ma leh haddaan qoy qadarka awood leh ilaa noloshu qurux ma leh haddaan qoys la noqonayn isla noqonay labada qof ee isjecel ee muxiibadii kalgacaylku ka dhaxayso ama sheeko wadaagii waxay ku qurux badan yihiin marka ay yani waxay soo wadeen ay miro dhalaan ee yani guur iyo aroos iyo ay noqoto ee loo gudbo markaasay ku qurux badanta marka wuxuu leeyahay nolosha haddaan yani dee qoysta noqonayno mataqaana maxaan qaban karaa sheeg oo aan kaa qarsanayaa ilaa noloshu qurux ma leh haye ilaa noloshu qurux ma leh haddaan qoysta noqonayn halkaasay ku dhammaatay heestii odaygii oo talo ku ciirtay oo iska sita hangool iyagu iska sitaayo ya talaa ku ciirtay gabadhiina waa yani iska iyadoo nafaba iskaga tegeysaa maxay samaysaa
heesta waxaa soo socota qaybtii afraad. heestan inaba caadi maa, heestan waa musasal. qaybta afraad bal waxaa dhici doona waan sugeynaa. laakiin heestu imika waxay noogu eg tahay intaasay noogu eg tahay. waxaan leeyahay asxaabteyda ku xiran I'm Too Deeq, odaygii Too Deeq waa kana, ama Deeq, Maxamed Deeq. waxaan leeyahay qof kastoo ku xiran oo sii sheer karee. inta nagu cusubna qalbi furan kusoo dhawaado. subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta waa dhinacii.